السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الملكة joogtaan kusoo dhawaada mar kale janalka man kubciye. Sidee Facebook passwordka loogu bedelaa ama lambar sirigaad ugu bedeshaa? Waan isla arkaynaa qaabka loo bedela. Waxaan kuu tusayaa tallaabo ee ila soco muuqaalkana share garay like-na dheh lana wadaag asxaabtaada. Kusoo dhawo. Si aan Facebook ugu bedelno passwordka waxaan tagaynaa qaybtaas ay ka muuqato saddexda urood. sidan idin calaamid doono sadarkiisaan saddexdaas ulood ayaan taabanayna dhag ayaan siinayna markaan dhag siino kadibna waxaa noo soo baxaysa sidan markay noo soo baxda kadib waxaan tagaynaa qaybta ay ku qoran tahay setting ayaad raadinaysaa setting iyo privacy qaybtaas ayaad galaysaa marka aad qaybtaas ku dhufato kadib waxaa sii taaban doontaa qaybta ay kusii qoran tahay settings ayaan sii taabanaya settings markaan tagay kadib waxaan tagi doonaa qaybta ay ku qoran tahay password and security sad arkaysaan waa qaybtan idin calaamadnay sidaasi ayaad gudaha ugu dhufanaysaa markaad gudaha ku dhufato kadib sidan ayaa kuu soo baxaysa kadib waxaa kuu soo muuqan doona taleefanada log-inka ah ee taleefanada akoonkaaga laga isticmaalo oo dhan ayaa kuu soo muuqanaya sidaa daraaddeed waa inaad isku hubisaa taleefanada log-inka ah qaybta bedelaada passwordka waa kan uu ku sawiran yahay furahaasaad arkaysaan oo ingiliishkana kuu qoran yahay change password kadibna waxa aad gudaha u gelaysaa qaybta change passwordka kadibna sidan ayaa kuu soo baxaysaa oo passwordkaagii hore ayaad gelinaysaa qaybtan sare labadan qaybo hoosena waxaad gelin doontaa passwordka cusub adiga oo ku celcelinaya labada jeerba kadibna waxaad leedahay update sidaas ayuu passwordkaagiina kugu bedelmay haddii passwordkaadii lowdina waxaad dhihi doontaa forget password sidaasna waxa ay kood kugu soo diri doonaa lambarkaagii ama emailkaagii sidaas ayaadna kula soo noqon doontaa passwordkii cusba haddii aad fahmi weyday waxba ha ka welwelin anaa mar kale kugu celinaya si aad u fahamto si aan Facebook ugu bedelno passwordka waxaan tagaynaa qaybtaas ay ka muuqato saddexda urood sidan idin calaamid doono sadarkiisaan saddexdaas ulood ayaan taabanaynaa dhag ayaan siinaynaa markaan dhag siino kadibna waxaa noo soo baxaysa sidan markay noo soo baxda kadib waxaan tagaynaa qaybta ay ku qoran tahay setting ayaad raadinaysaa setting iyo privacy qaybtaas ayaad galaysaa marka aad qaybtaas ku dhufato kadib waxaa sii taaban doontaa qaybta ay kusii qoran tahay settings ayaan sii taabanaya settings markaan tagay kadib waxaan tagi doonaa qaybta ay ku qoran tahay password and security sad arkaysaan waa qaybtan idin calaamadnay sidaasi ayaad gudaha ugu dhufanaysaa markaad gudaha ku dhufato kadib sidan ayaa kuu soo baxaysa kadib waxaa kuu soo muuqan doona taleefanada log-inka ah ee taleefanada akoonkaaga laga isticmaalo oo dhan ayaa kuu soo muuqanaya sidaa daraaddeed waa inaad isku hubisaa taleefanada log-inka ah qaybta bedelaada passwordka waa kan uu ku sawiran yahay furahaasaad arkaysaan oo ingiliishkana kuu qoran yahay change password kadibna waxa aad gudaha u gelaysaa qaybta change passwordka kadibna sidan ayaa kuu soo baxaysaa oo passwordkaagii hore ayaad gelinaysaa qaybtan sare labadan qaybo hoosena waxaad gelin doontaa passwordka cusub adiga oo ku celcelinaya labada jeerba kadibna waxaad leedahay update sidaas ayuu passwordkaagiina kugu bedelmay haddii passwordkaadii lowdina waxaad dhihi doontaa forget password sidaasna waxa ay kood kugu soo diri doonaa lambarkaagii ama emailkaagii sidaas ayaadna kula soo noqon doontaa passwordkii cusba okay saaxiibayaal muuqaalkeeni maanta intan ayuu ku dhan yahay intaan mar kale muuqaalkan oo kale dib ugu kulmi doono waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sii sheer garaya muuqaalka lagna saara lana wadaaga asxaabtiina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.